Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada asxaabtaan hawada ku saaxiibnay cashirkeena koowaad ee maanta aan halkan ku baran doono. Runaantii maanta waxaan idinku talagalay applicationkan hortiina ka muuqdo oo uu ku qoran yahay thumbnail maker. Runaantii applicationkan waxa aad ka heli kartaa Play Store-ka. Ugu horreyn waxa aad soo furanaysaa Play Store-ka. Markuu sidaan kugu soo baxo Play Store-ka, qaybtan ay ku qoran tahay Searching Apps Games oo qoraalada lagu qoro ayaad ku dhufanaysaa. Marka aad ku dhufato waxa aad qoraysaa thumbnail maker qoraysaa. Marka aad sidaan u qorto meeshan ayaad ku dhufanaysaa. Laakiin aniga kor ayuu ii saaran yahay, adigan kor ayuu kaga soo baxayaa. Marka waa soo degsanaysaa applicationka magaciisa, laakiin soo qoraale shaashada kaga muuqda. Waa gelinaysaa kaliya haddii aad fahmi weydo qoraalkaas geli. Marka inta ayaan ku dhufanayaa kadib open. Ana haduu ii degsan yahay mar hore isticmaali jiray, open aan ku dhufanaa. Marka aad open ku dhufato sidaan ayuu kugu soo baxayaa applicationka. Waxaan xayeysiin waad ka noqonaysaa. Marka laakiin applicationka kani waxa xayeysiinta businessyada, kani waa fashionada carwada sida style-ka dharka iyo meelahaas ayaa lagu xayeysiistaa. New template waa kuwan template cusub waaye. Summer, real estate, economic commerce, fitness, SBA, love. Waa ciwaano fara badan oo intaasoo shay ay ku jiraan oo xayeysiin lagu sameeyo. Photography waa kana, funny waa kana. Okay, anaga hadda waxaan ka dooranaynaa business. Qaybta ay tahay business kuwaani ayaa ugu qurux badan. Dhammaantoodna way fiican yihiin, laakiin inta badan businesska iyo ganacsiyada ayaa la xayeysiiyaa. Marka kuwa ay VIB-da ku qoran tahay, VIB-da ay ku qoran tahay waa kuwa oo lacag u baahan. Marka kuwa kale dhan waa free. VIB-da waa kana marka aad ku dhufato sidaan ayuu ku soo qorayaa oo lacag ayuu u baahan yahay. Balse inta ka soo haray waxaan kaloo quruxda badan dhan waa free. Haddii aan baroobeyno midkaan aan ku dhufano, marka aan ku dhufano xoogaa yar wuu degayaa. Waxaan waa xayeysiin kaliya. Cancel ayaadna iska dhahayaa. Marka uu sidaan kugu soo baxo oo wejiga sidaan kugu furmo, waxa aad sameynaysaa sawirkan waa qabanaysaa. Si ujeedid uu dhaqaaqayaa Soomaa. Sawirkan qabanaysaa markaasaan yeesho delete aad ku dhufanay waa iska delete gareynaysaa. Marka aad sawirkan sidaan iska delete gareyso, waxa aad sameynaysaa sawirkaaga ayaad ku soo darsanaysaa. Waxa aadna ku dhufanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay image. Marka aad ku dhufato wuxuu ku dhahayaa use camera, kaamirada isticmaal, ama use gallery, gallery-kaada sawiraanta kugu jiraan soo isticmaal. Marka waxaad ku dhufanaysaa use gallery. Marka aad ku dhufato gallery ayaad ku sii dhufanaysaa. Marka aad sidaan ugu dhufato waxa uu ku soo saarayaa waxyaabaha sawiraanta ee kugu jiro mobilkaaga. Marka waxa aad raadinaysaa sawirka aad rabtid in aad saarato ayaad soo dooran doontaa. Aniga hadda midkaan ayaan soo dooranayaa. Sawirkan ayaan dooranayaa oo aniga mobilkayga ku jiro. Balse sawirkaani marka aan sidaan u soo doorto waxa uu leeyahay background. Marka sidee background la'aan asigoo aan u heli karaa? Sawirkan had background ayuu wataa, waana khash oo meesha ma ku soo baxayo. Marka sidaa darteed waxaan sameynayaa sawirkan waa iska delete gareynayaa. Marka background-kan ka soo qaadaa. Background si aad u qaado waxaad imaanaysaa Google-ka ayaad galaysaa. Waxa aadna qaybta qoraalka ku qoraysaa remove BG aad ku qoraysaa. B for book, G aad raacsinaysaa.
kadib qaybta searching ayaad ku dhufanaysaa markuu sidaan uu kugu soo baxo waxaad ku dhufanaysaa meesha ugu sareysa marka aad ku dhufato xoogaa kadib ayuu ku soo baxayaa marka uu sidaan kugu soo baxo waxaad ku dhufanaysaa upload image sawirkaaga ayaad ku soo upload gareynaysaa marka aad sidaan ugu dhufato sawirka ayaad raadinaysaa oo aad rabtid in aad background-ka ka qaado sawirkaas ayaad la soo bixaysaa oo aad doonaysid inaad background-ka ka qaado marka sawirkaaga ayaad la soo bixaysaa oo aad raadinaysaa sawirka aad rabto inaad background ka qaado waakina aniga sawirkan ayaan rabaa inaan background-ka ka qaado waana ka qaadaya waa iga qaadmada waa ka sida aad arkaysid gadaal dhan waa eber kadib waxaan ku dhufanayaa download waa soo degsanayaa marka uu sidaan igu soo dego waan ka baxayaa oo waxaan ku dhufanayaa qaybtan oo mobilkayga kadib marka aan ku dhufto waxaan ku naqanayaa booskii ka soo tagay waa kan hadda barteedii ayaan joogaa waxaan waxaysiin oo waa ka noqonaysaa kaliya marka aad inta imaato waxaad ku dhufanaysaa image qaybtii hore use gallery ayaad ku sii dhufanaysaa marka aad ku dhufato gallery ayaad sii galaysaa marka aad sii gasho marka waa kan sawirkii asigoo background la'aan ah sawirkii ayaad dooranaysaa marka aad doorato siiskan ayuu kugu soo baxayaa sawirka marka siiskan ayaad ku soo dooranaysaa waadna ku soo daraysaa marka sidaan ugu soo darto waxaad sameynaysaa sawirka ayaad soo weyneynaysaa sawirka ayaad xoogaa soo zoom gareynaysaa kadib waa kana sidaan ayuu kugu soo baxayaa markuu sidaan sawirka kugu soo baxo sawirka xoogaa waa khafiifin kartaa waana kalaradana waa kasii bedeli kartaa haddaad rabtidna kalarkiisa ku dayn kartaa haddaad rabtid opacity-ga ka khafiifin kartaa sawir khafiifa ka dhigay meel dheer ka soo muuqdo haddaa wuxuu ku fiican yahay sidiisba inuu dhammaystirnaado calaamadaas kadib sidaas ayaad ku saxaysaa marka qoraalka ayaad u imaanaysaa qoraalka haddii aadan rabin waa iska bedeli kartaa qoraalka ayaad ku dhufanaysaa textiga aad rabtid inaad wax ka bedeshid qaybtan edit ayaad ku dhufan kartaa hadda business meeshaan ku qoran waa ka bedeli kartaa anad meeshaan business ugu qoran waa ka bedeli karaa waxaan ku qorayaa mr marka aad sidaan ugu qorto qoraalka qaybta koowaad ay bedesho haddana waa ka qaybta koowaad waa bedeshtay waxaana ka dhigtay mr ayaan ku qortay marka waxaad ku dhufanaysaa qoraalka xiga marka aad sidaas ugu dhufato waxaad ku dhufanaysaa qaybta ay ku qoran tahay edit-ka marka aad ku dhufato qoraalkaaga ayaad ku soo darsanaysaa expert meeshan ku qoran waa iska tiraysaa mr anad waxaa rabaa inaan ku sii qorto designer waa kana marka qoraalkii kale aan ku soo darsanaa mr designer marka bicomtan waa u baahnaa oo iska dilad gareynay inta marka way qaadi kartaa qoraalkan iyo qoraal ka badan marka waxaan rajaynayaa in aad fahamtay kadib waxaad sameynaysaa calaamadan falaarta aad ku dhufanaysaa waadna soo degsanaysaa sawirkaagii haddeer sawirkeeni waa inuu degayaa oo waxaan waxaysiin marka internetku furan yahay xayisiin fara badan ayaa ku soo korayso waadna iska cancel gareynaysaa markaad sidaan yeesho cancel ayaad ku sii dhufanaysaa waad ka baxaysaa aad sawirkaagii waxa aad ka heli kartaa gallery-gaaga sidaad arkayso waa kina sawirkii asigoo nadiif banaanka ayuu inoo yaalaa marka sidaani isi ka qurux badanba waad samayn kartaa kaliya waxaad u baahan tahay isku day inaad sii raacdo tilmaamaha aan ku siiyey insha allah waan ka soo samayn doonaa part 2 fadlan walaal fiidiyoon like garee channelka haddii uu ku subscribe gareysnayna subscribe gareyso linka youtube-kana waad haysaa hore u sii share garee oo asxaabtaada u sii share garee si ay ayagana xirfadan uga faa'iideystaan maanta waan bilownay casharkii koowaad marka sida uu casharada kale ay u dhaafin u sii share garee si ay nagu soo biiraan waad ku mahadsantihiin idinkana daawashadiina waxaan rajaynayaa inaad fahanteen wixii aadan fahminna waad ila soo wadaagi kartaan oo aniga ayaa idin joogo oo idinka saxayo insha allah